waxaan ku suganahay magaalada Bayla dhinacayga waxaa taagan Saciid Faarax Ducaale oo ah nin laacibinta Soomaaliya bahda sportska ahaanan jirayna gudoomiyaha sportska ee kubadda kolayga ee wadanka Soomaaliya iyo Canada labadaba wuxuu maanta ku sugan yahay magaalada Bayla ee wadanka Denmark wuxuu soo booqday istaadka waxaan leenahay ku soo dhawo wadanka Denmark gaar ahaan magaalada Bayla al-istaad dhinaca kale waxaa taagan qolii batroolka Kennedy Abdi Daahir oo hadda iska dhigaa nin yar oo dhalinyaro ah laakiin waa 80 jir maxaa kala ah marka Kennedy halkan ku salaamay ummadda Soomaaliyeed maanta haddana waxaan ahay Cabdullaahi Baydhabo oo badbacada ahaa laacibinta Real Faqdeesh reer Denmark ah Kennedy بسم الله الرحمن الرحيم ماشي ku salaamay dhamaan baahda sportiga ee xafladda weynka arooska oo qaaliga ka dhacay magaalada Bayla qaas ahaan waxaan aad u salaamayaa maxaan Faarax oo noogu yimid Canada oo ah Saciid Faarax oo ah legend basketball ee Soomaaliya marna noqdo gudoomiyaha sportiga ee kubadda kolayga ee Soomaaliya iyo Canada welcome ku soo dhawaad magaaladaadi waay sportiga annaga cad iyo jeer waa taageersanahay siba qaas ahaan aniga afar ilaa 9 waxaan ku jiri jiray habeenkii luujina difoosana u ahaa waana nin qaali lagu ah oo inta sana aan saaray oo maanta saaray ma sha Allah ku soo dhawaad bismillaahir rahmaanir rahiim wa mastiin Kennedy iyo Faisal iyo Cabdullaahi madbacada ama Cabdullaahi Baydhabo sidii loo yaqaan oo maaragtay garoonka isla galnay sidii liigu soo dhaweeyay magaalada Bayla dalka Denmark aad u maasiin oo xarako wala ilmaamay banaankeena al-istaad al-abwaan استاذ حركو سي ardayda macallinka weyna injineerkii professorkan waa loo xildhibaan waa kana marka waxa waaye magaalada dalka Denmark Bayla waxaan u mid arooskaas waxaan kula kulmay baahda sporti iyo baahda fanka intaba iyo maaragtay siyaasiyiintii hore ee maaragtay wadanka waxaa nooga mid yahay maaragtay xarko waa joogo professorka Cabdullaahi Baydhabo oo xamarij baa isku kornay oo asna ahaa laacibintii maaragtay kooxda madbacada karate oo asna ah wariyaha ka asna ah iyo ina Abdi Daahir oo Kennedy Abdi Daahir oo kooxda batroolka asla ahayd oo maaragtay kubadda cagta oo ahaa anina kubadda kolayga ahaa marka waxaa la si fiican si liigu soo dhaweeyay aad baa u maasantiin maaragtay sportiga waxaan ka filayaa meel walba nin sport lagu arkay sidaan si fiican loo soo dhaweeyay sportiga iyo fankana waa dad walaalo ah waxa la isku yiraahdaa artiska marka meel walba ay joogaan ma laha ba arkino magac kale ma laha waa dadka madadaaliye shacab weynaha Soomaalida iyo dadka jecel sportiga inta marka aad iyo aad ma Abdullaahi soo qabeerana waa kala assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh ilaahi ma ووجه أن ولالنا مربع السبورت إلى رسمي هنا باسكتبول برسماتكي بطرولكي مطبعتها مخليهن مرنا في حمر الجماعة سليه ما تقدم بعد موسى وبابا عروس كميل كان لها يدرس يزود عليها فاكستة دكتور إلى لوجي بعد شرف النوتاي وأنا سود على شرف النوتاي ويننا وقدرنا وأنا جعلنا هنا مدنا للسجود لكن إن شاء الله تعالى أنت وديونا سلك عنه ولا شيء سنة ذكر مناسبة نحن في سنة يا تعسيدة ولاشن سعيد وريري وانتي ويكور جيريوتي كندا صرنا ينا وتعسيدنا لما بعض سبورت العيال وقت تعسيدنا خاصة باسكت غير باسكت بول سعيد فارح عليه لما شيء كان كرا زوركا اللي بترول كنا وعقلنا بدوني حرير كبدة كله يجنيك للسي ير أو قوة وهي أيوة للسي إلى وسوق جرسي أفريقيا تورنمنت إنه فاينل قاعدي إنه يسوق جرام فاينل أي قاعدي سوري إنه يسوق صارم فاينل كا مركا هذا وحوايا لقى سوق كتير سعيد إن شاء الله على ذكرنا يعني معمول كي أو معمول هذا وقام بسبورتي لو دا يدري وها يراو أصل سعيد فارح يتكلم بها حركوا محمد وكيف فضيش سوانا كان
marka waa dhanna soo gaaro ilaa iyo shalay iyo maanta waxa way 30 sano gadaal ما شاء الله ان شاء الله ونقيل يا حدا sano gadaal nooceeya yani waxa ka wada marka ka sheekeynaya taariikhda iimayl Soomaaliya waagi ayam shabaab qabla hanuun baa ayam shabaab ay ka sheekaysan jirtay waxyaabo dhammaan waa adagtaa iskuwaan oo kale marka nolosha isagoo soo dhaweynayna magaalada Fadhiisha ku soo dhawow hadda meesha jooga bayla la yiraahdaa kullu waa inta misal gobolka waxa ku yiraahdaa area the triangle area of Denmark يولان ولا يولان waa yiraahdaa the triangle area of Denmark macnaheedu waxa weeye centerka Denmark ka joogta alooshii Denmark waa joogta maanta ku soo dhawow insha Allah waxaan ku rajaynaynaa mataqaanaa bogaanid fiican deegaan fiican soo joogitaan fiican laga garabkaaga taagan oo inta maanta ما شاء الله ما شاء الله sportiga waxaan ku raaa wariyaashii wax ka soo la kulantay ilaahay idinkiisa inta muddada ku dhiman waxaan rajaynaynaa inaad nagu sii farxado ان شاء الله ان شاء الله aan ka dhaxgal hal mar xarago waxaan rabaa hal mar inaan noogu luqeysay heestaadii abu waa cod waaxid waxbarta barwaaqaan gaarno dadku kuma yaqaanin social media waa ka dhuumataa ogaani codka waa xirmay ay erayada rabnaa samayn kara hadda tan waa ka cudur daarana codka waa xirmay laakiin waxaan xasuustaa laakiin waxaan xasuustaa inaan xilligaas waxaan dhihi jirnay inaan maanta dadkeena ku baabay ku dhameeyo marka waxaan dhihi jirnay annaga badownimo waa balaayo وانا بابا ابو لبس كمدو كوبا ما بدت خبرت عن بروح يعني هو يصير علم وتعلم علم وتعلم ما حدش كبوها اما بر يعني شكاس ما انتوا على قبح دباتنا هي ستة كم تاي وروحنا ما برنا واحنا ما برينا مركا ان شاء الله حوايا arrintaas waa arrin bartaan barwaaqo gaarnay waxweeyaan arrintaas markaas waxay anagoo yar yar ayaan lagu soo canshariyay iskoolada markaan dhiganaynay waa ku luqayn jiray runtaa waay markaan maqlo meel ay dalqanaysa maasha allah dadkaa soo xasuustaa waagaas waxa lagu waanin jiray toddobaatameeyada sano kadib ayaan u jeednaa yani gabayaaqadii ama masalan waxyaabihii ka soo baxay natiijooyin ka soo dhashay badnimada iyo jahilnimada waxyaalaha qaarkood aan isticmaalay marka insha allah soomaalida waxaan rajaynayaa inay wax bartaan إلهي إنه نمسيه ودكينه توصل إلى حلنا إنه سالمين غانمين آمنين أن نكون إن شاء الله آمين آمين إن شاء الله